oo aad tahay maxay tahay video editor oo aad u baahan tahay alaabooyinkan la yidhaahdo Adobe. Waxaan ku hayaa Adobe Premiere Pro iyo Adobe After Effects iyo Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator oo qolyaha sameeya kartoonada iyo waxaas. Anyways, marka website-kayga insha Allah ayaan soo dhigi doonaa. maxay tolay waan idin la soo socodsiin doonaa linkiga xagga hoose ku soo qori doonaa. Bal haddaba casharka ugu horreeyay ee Adobe Premiere Pro oo ah YouTuber tahay, haddii aad tahay qof kale oo maxay tahay videoyadii waxaa xiiseeya, waxaad u baahan tahay Adobe Premiere Pro. casharkii ugu horreeyay ayaan isla geli doonaa insha Allah. Welcome to Adobe Premiere Pro, casharkii koowaad ee Soomaaliya. YouTube way ku yar yihiin wax sameeya casharada loo baahan yahay ama Skillshare waxa la yidhaahdo. maxay tahay sida la isula wadaago waxyaaba noocaas ah skillska. marka casharkeeni ugu horreeyay marka haddaba aynu bilowno, aynu guda galno. dad please kusoo yaaca channelka, subscribe, like and share. markaad saa u furtid waxaad helaysaa waxa weeyaan page-kan ugu soo horeeya oo ah home. new project baan leedahay anigu waxaan oo dhan ka soo shaqeeyay iska bixisa kartaa new project markaad tagtid saas ku soo baxaysa. marka meeshan wax la leeyahay ku qoraysan jirto okay ma taabanaysa. markaad taabatid wala saas ku soo baxaysa. marka aniga sidan uu yahay qof baad siba ka dhigtaa, ha ka baqin marka la rabtid daaqadaha faraha badan kugu furmay ka baqin. marka waxaad rabtaa inaad soo dejisato, aad wax soo geliso ama video aad duubtay soo gelisid, ama video aad YouTube ka soo baxday, ama adigu waxaad jeceshahay. qon yar waxaad tegaysaa faylkaaga markaad tagtid videogana kale ka soo qaadba wuxuu yahay ma garanaya kale. ama kaygan ba ka soo qaad iska tijaabo, aan cod koobiyo iska tijaabinayo. videoga ka soo qaad deetana halkaas ku soo gudbi drag and drop. saas unbaad soo jiidaysaa, baad soo gelisay halkaas ku soo ridaysaa. marka halkan markaad ku soo ridid kadib haddana halkan aad soo riixaysaa intaad ku soo qaadid. markaad soo qaadid meeshan waxaa la yidhahdaa daaqadan waxa weeyaan daaqada la yidhaahdo timeline-ka. oo waxay aad daaqadan ku samaysaa toos bay u dhacayaan. haddaad guyso go-ayaan, haddaad editing kale ku samaysad wax ku dul qorto way samaysmayaan. marka halkan waxa weeyaan sequence window baa la yidhahdaa, laakiin anigu waxaan isticmaalaa effect control. markaan dee effectski waxaa samaynayo aan jeclaan inaan isticmaalo. laakiin marka ugu horeysa aad geshid sequence-ka halkaa sequence-ka taabto kale ay kugu soo baxaysaa, laakiin aan window-gan iska bedelay sidanaana fiican. markaad geshid waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad barato waxa weeyaan fileska. new file, new project baad odhan kartaa, open project, close all project, save markaad save garanaysid waa halkaa weeye. Adobe link oo maxay tahay ku diri kara Adobe After Effects oo insha Allah casharada dambe markaynu kan dhammayno aynu ku baran doono. import oo hadda toos rabto inaad wax ku soo rido. import recent file marka faylashii dee aan isticmaalayay oo kale. iyo export markaad waxaan imikaad editgareynayso dhammaysid. export media click adigu meel kale kutusaa hadhow ku tusto. edit ayaad haysataa oo maxay tahay qaybta editing-ka ah, inkastoo waxyaaba badan ay xidhan yihiin laakiin hadhow ku wada furmi doonaan insha Allah. clip oo ah maxay tahay clipkaagan haddaad haysato qaabkaad rabto inaad isticmaasho. haddaad rabto inaad source settingska iyo
waxyaaba badan inaan hadhow toole gudageli doono. Render effects iyo waxyaabahaasna waa sequence-ka, marker in marker clip oo kuwan yaryar weeye hadda mouse dul saaran yahay. Graphics, halkan graphics waxyaabahan halkan marka muuqdo oo kale oo ah custom graphics na samaysan kartaa kuwa dee hore loo soo sameeyay inaad isticmaali kartaa dhib marka isku daraysa meesha. View waxa weeye viewska laakiin inta badan loo isticmaalo workplace-ka imka sidan uu yaalo anaa kartay, laakiin workplace-ku sidaad jeceshahay ayaad ka dhigan kartaa, sidan oo kale aad bedeli kartaa waad rabtid wall balance dabeetana saas isu bedelaya oo sideedii marka adigu markaad soo download gareysid saasuu kuu noqonaya. Marka sequence halkana waxa weeyaan timeline-kii, halkana baashii kale, laakiin anigu ma isticmaalo taydii horaan ku noqonayaa. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan haddaad beginner tahay aad rabtid inaad ogaatid waxa weeye codka iyo videoga waad kala saari kartaa marka saasoo taabanaysaa right click, dabeeto waxaad leedahay unlink markaad raadid codkii goonidiisa sad u wadwadi kartaa, haddaad doonto ka saari kartaa music baad buuxi saari kartaa, videogiina isaguna goonidiisa wada yareyn kartaa isaga laftirkiisa intaad jirto. halkan waxaad ku haystaa toolbarkaaga weeye, waxaad ku haystaa text qoraalkaada rabta inaad wax ku dul qortaa, hand tool oo haddaad wax soo jiidayso oo kale ah, pen oo ah maxay tahay haddaad wax ku calaamadinayso, select tool oo aad ka jari karto sida halkan iyo halkan oo kale aad rabto inaad intaa dhexe jarto, razor tool oo iska garanaysaa makiinada ku sawiran oo kii la jarjarayay, iyo the mouse oo selection tool wax ku tataabanaysa. intaas waa intaa markaa videogeena markaa muusiga baan kala saaraba, rabtid inaad ka saartid waxaad taabanaysaa ka hoose ee codka haddaad rabtid inaad ka saarto cut unbaad leedahay markaaska kuma jiro imka. haddii aad rabtid in aad sidaas oo kale imka tutorial baan rabay inaan sameeyo ku socotaa OBS, laakiin codkayga yara xumaaday markaa codkan ku testgareynayo iminka videogan oo video iska saambala. haddii aad rabtid inaad intii hore imka OBS markaad wax ku sameyso kale waxyaabahaas kusoo baxaya soma OBS calaamadiisii iyo raadiyo isku dhex yaacsanaya, marka inta ugu horeysa un weeye mugti, marka halkaas aad ka bilaabi kartaa. marka rabtid inaad intaa goysid waxaad leedahay makiinada soo qaadanaysaa dabeetood ku goynaysaa, markaad goyso waxaad ku noqonaysaa mouse-ka, dabeeto halkii yarayd baad taabanaysaa inta cad, dabeetana waxaad leedahay cut, dabeeto way kaa baxday. imika marka videoga waxuu ka bilaabmayaa halkaasuu ka bilaabmayaa, waxa kale kuma dhex jiraan, waa iska goysay intaas. haddaba waxaa soo hadhay videoga, haddaba calaamadda yara cas hadday soo korto waxay dib baad u jiidi kartaa, intii kaa tagtay way ku soo noqonaysaa. haddaad hore u soo jiidid iyadana waad ka goyn kartaa, taana waad isticmaali kartaa labadaba iyo makiinada. inta badan dadku keyboardka isticmaalaan, laakiin anigu keyboardka inta badan ma isticmaalo, mouse-ka iyo waxyaabaha yar shortcuts iska yar kalaadka isticmaalaa. keyboardka marmar garanaysaa after effect iyo waxaa isticmaalaya ayaan isticmaalaa. marka intaas horta waa intaa. ka soo qaad waxaad rabtaa halkaa inaad soo saarato effect yar oo ama aad
title kusoo qortid videoga intaa madow text baad tegeysaa. text markaad tegtid saasaad u taabanaysaa meesha, dabeetna waxaad jeceshahay ku qoraysaa. waa yaabo markaasaa ugu qortid oo kale inaad aragtaan baan malaynayaa. saasaad ku dhaweyn kartaa, isku xiri kartaa. marka waad aragtaa, haddaad doonto oo aad rabto inaad soo dul saarto qaybtan iyadana waad samayn kartaa. wakaa laakiin waxaa laga yaabaa waxaad u baahan tahay markaa masking wax la yidhaahdo. waad aragtaa, kadib waxaad ku noqonaysaa mouskaaga markaad ku noqotid waa tijaabi inta laga kasoo baxday. aad iska delete garan kartaa ma baahnid. taasi wataa kasoo qaad waxaad u baahan tahay video kale inaad ku dhex darto ama aad sawir dul saarto oo kale. halkan ba iska gal kasoo qaad calaamadda heer baad rabtaa inaad dul saarto. videoga madow waxaanu isticmaalaa intaa yaree subscribe taasoo kale sidiisi level soo qabanaysaa, halkaas kusoo tuuranaysaa, kadib aad soo dul saaraysaa. markaad dul saarto saasaa kusoo baxaysa waad aragtaa. kadib waxaad sameynaysaa inaad halkan yara weyneyso muraayadda la ekaysiiso. muraayadda markaad la ekaysiiso effects control waxa la yidhaahdo geleysaa. effects control markaad geshid waxaad rabtaa inta madow videoga in aad iska saarto. kadib sidan aad leedahay raaliyahaada maaska soo dama qaatay kanaad geynaysaa. maaska squarekaada dooranaysaa dhinacaa ku yaala, kadib saasaad u ekaysiinaysaa. sid markaad dhegeysisid waxaad leedahay halkan waxyaabaha ku yara saxsaxaysaa. saasaad kala baranaysaa. dabeeto bismillah bilay baad leedahay. waad aragtaan baan u malaynayaa. inkastoo imkaan degdeg ku sameynay waxaa la rabaa in xagga dambe aan wax madow ka muuqan, xataa ka dego maasku meesha calaamadda yar ay degto in wax kale ka muuqan. laakiin kan yar madowga muuqatay inaan waxa ka muuqan baa la rabaa. laakiin waa tusaale ahaan marka videogaaga waxyaabo badan baad ku samayn kartaa. markaan imika kabtadeeda markaad ku geyso codkii baa yimi. waxaad samayn kartaa isagana sidaas leeg files baad gelaysaa. cod aad soo downloadsatay meelaha kugu jiray ayaad saari kartaa. iminkaasuu kartaa tan oo kale timelinekaad kusoo tuuratay ka marka timeline kusoo tuurto marka inaad maqlaysaan baan u malaynayaa raalihaada codkaa dalacnaa. intaasna waa taa codkiina isagana sidoo kale waad jarjari kartaa, waad yareyn kartaa.
intana kaliya tiri kartaa inta ay ugu horeyso kale kusoo gelitaanka oo kale marka waa kaa isaguna cod hadda xataa duubtay haddii aad videoga cod ka xumaado oo kale cod baad ka duuduubi kartaa saa doontaad ka yeeli kartaa waxaana hadhay qaybta graphics-ka taytalo haddaad u baahan tahay oo kale halkanaad ka helaysaa iyagoo freeya iyagoo adoo samaysan kartaa kuwo sidii textkan kutusiyo kale ku samayn kartaa casharada dhan baynu ku fahmin karnaa in dad waxa u taagay subscribe button title loogadaada xataa meel yaraada loogadaada saaratid waxaasoo dhan baad helaysaa iminka kale kasoo qaad waxaasoo dhan baad helaysaa iminka kaas waa youtube and screen marka saasoo kale unbuu soo jiisaa kan halkaasaad straight u saaraysaada isaga xagga iskiini dabeed waa kaa aragtid muuji deetana halkaasan baad saaraysaa loogadaada yaranaysaa inuu screenka daekaado mugti intaas un baynu rabnaa marka waa kaa dabeeto hadaad isaga saa u taabato oo kale hata meesha idii sheegay daaqadii soomaalida hadaad isaga saasoo kale u taabato kaa markaa maxaad control garan kartaa waxaad control garan kartaa halka textka title text waxaad oran kartaa sidan oo kale title text halkaa leh thank you for watching mahadsanid daawaday waxaad doontaad ku qori kartaa subscribe intaasoo dhan baad samayn kartaa hadhow tale videoga markuu diyaar ku yahay hadaad dhamaysato waxaad u baahan tahay markaa in aad export garayso waa muhiimtan waana ta ugu muhiimsan ta ugu muhiimsan tan wey export markaa file baad taabanaysaa export media kadib kusoo baxaad sugaysaa kadib saasaa kusoo baxaysa haddaba halkan weeye meesha dad badan ay khalka ku sameeyaan ee aan arkay halkan weeye dad badan ayaan arkay halkan khalka ku sameeya oo waxay sameeyaan videogii iyo wixii aan isnahayn bay intay soo export garayaan baa dhowtalo video quality ku xumaada horta number one formatka waa inaad dooratid H264 taasoo kale preset waad samaysan kartaa match the source haddii sourcekii marka hore aad kasoo qaatay source fiican ahaa haddii kale adaa bedeli karaa videoga halkan magac baad u samayn kartaa halkan geenaya dadna magacaad ka bedeleysaa waxaad leedahay cashar koowaad saa iska dheh sif baad leedahay oo qaabkan kasoo baxaya markaa waxaad samaynaysaa match the bitrate markuu match garayo iminka halkan waxaynu ku aragnaa sequencekii iyo maxay tahay
videogu wuxuu ahaa oo dhan baa halkan nooga soo baxaya. marka waxaan kala oo dhan inaad taabato lama baahna. marka ugu horeysa waa waxaan sii saxiib hadda ku sii saxaysa waxa weeye match the source. haddii aanad saa samayn karin sidan aad leedahay hc264 kadib presetkaaga intaad samaysato waa tan oo kale match the source intaad ka baxdid aad la soo degeysaa youtube hadaad wax gelinaysa youtube 1080p full hd. hadduu videogaagu 720 aad ku duubtay kale kasoo qaato 480 720 baad ka dhigaysaa. haddaad 720 ku duubtay 1080 baad ka dhigi kartaa. haddaad 1080 ka dhigtay 4k baad soo qasbi kartaa. markaas saas oo kale hadba waxaad ku duubtay wax in yar ka sareeya ayaad dooranaysaa. marka videoga quality-giisu fiicnaanayaa si fiican u noqonaya. kadib waxaad samaynaysaa waxaad dhan markaad taabato halkan waxaad taawati garan kartaa. inta badan ka tag awoon bay leedahay laakiin iska tag garan kartaa. wuxuu ku leeyahay use maximum render quality saasaad leedahay encoding. imika anigu waxaan haystaa Adobe encoder waayo waxyaaba badan baan inta badan ku duuba meeshan, so taasaa keentay in baahdo encoder. laakiin haddaad adigu iska beginner tahay uma baahanaysid. computerkaagu wuu fiican yahay, wuu cusub yahay, laakiin encoderkuna wuu fududeeyaayo waad aragtaa in videogeenii waxaa ka hadlay 50 seconds 1 minute gudaheed buu ku dhamaanaya. haddii kale waqti bay kuu qaadanaysaa inta encoderka haysan. marka encoderka Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop photographer tahay waxa oo dhan iyagoo bandala waxaad ka helaysaa website-kayga. insha allah waan soo gelinayaa description-kana inuu kusoo qorayaa channel-kana kusoo yaaca channel cusub weeye inuu soo xamira qofka sababtay skill ku leeyahay inuu dadka la sheekeeyo mugti. marka waxaad garanaysaa un dadka la soo sheekeeyo mugti. marka channel-ka la soo xamira waa lagu soo yaaco share-ka like-ka subscribe-ka dhammaan iyo comment-ka hadii waxaad doonaysaa inaad ogaataan soo weydiiyo idin soo sheegaya inta aan aqaano. aad iyo aad bay mahadsantihiin. intan yaa baneeynaa videoga markuu dhamaado. inkastana hadda wax saas ku samayn laakiin videoga xiga ayaanu si fiican step by step u samayn doonaa waxaan samaynay oo dhan maanta. inta yar introduction u bay ahayd marka insha allah ku xidhan.